أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسغالكي بشي كوي تمنات سنتي لبدا كون iyo 19 waani wax Sucaad Ugaas Maxamed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaalida ogaadeenaya ee ku hoostirta gumeysiga madowga Itoobiya meelaha ay adduunyada kaga nooshahay salaanteeda xaq ah kadib walaalayaal codkeeyani wuxuu qayb ka yahay codad kuway ahaa oo taxana ahaa oo aan soo gudbinayay insha Allahna waa mid taxana ahoon hadduu ay bixeen weyn ay waafajiyo aan la wadaagayo Soomaalida ogaadeenaya marka eega waxaan haddaan fursad u helaa aan ka hadli doonaa aragti saliim ah aragtidayda saliimka ah aan ugu magac daray waxaan ka hadlayaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin waa maxay hoggaan aragti gaaban labo waa maxay hoggaan aragti dheer saddex aqoonyahan muxuu yahay afar xornimo doon oo aan laba u kala qaadayo xornimo doonka tubta saxda ah qaada iyo xornimo doonka tubta khaldan qaada su'aasha saddexaad waxay tahay su'aasha shanaad waxay tahay macnaheedu qodobka shanaad wuxuu yahay halka waara ee Soomaalida ogaadeenaya oo aan u qaybin doono insha Allah himiladooda dhow himiladeeda dhexe iyo himiladeeda fog iyo qodob fiiro gaar ah oo ah gumeysiga madowga Itoobiya intii tabarteeda inaan iyadana aan sharaxaad ku sameeyo marka waan ku soo dhawaanaynaa waxay tahay hoggaan aragti gaaban markaan leenahay marka ruuxa hadlahaya ee codkan iska leh waa Axmed Sucaad Ugaas Maxamed weey marka Axmed Sucaad Ugaas Maxamed wuxuu xaq u leeyahay inuu ka hadlo Soomaalida ogaadeenaya marka Soomaalida ogaadeenaya su'aasha ay ku jirtaa waxay ahayd su'aal gumeysi marka waxa weey maadaama ay su'aal gumeysi ku jirto waxay leedahay gumannimo doon gumannimo doonkeeda xaq ah ee ugu dambeeyay halkan kanaad qor isku dhiibkaana waa oona la faajawaxo sida awgeed waxaan ka hadlayaa marka hoggaanka aragtida gaaban Soomaalida ogaadeenaya jawaxo sifaha uu yeelanayo maxay tahay weeyaan marka waxa weeyaan marka hoggaanka aragtida gaabani waxa weeyaan waa hoggaan isaga waxa u muuqda kaliyeeta ka shaqeeya oo ay ku halgama sida waxa u muuqda ee kaliyeeta maxaa la oran karaa marka waxa la oran karaa kaba soo qaad xubinka gumannimo doonka ah ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya wuxuu leeyahay nidaam dastuur xeer markuu ku soo biiray jabhadda wuu ku dhaaranayaa markuu ku dhaarto wuxuu isticmaalayaa aqoonta ama formulaha la yiraahdo uhurid naf maal iyo waqti formulaha markuu raaco la xajeclaa uu noqonayaa laba arrimood mid baa u taala inuu xorriyadii gaaro iyo inuu shahiido labadaas mid baa u taala laakiin wax dhexe oo ma taalo marka waxaan dhigi karaa marka hoggaanka aragtida gaabani waa ka himilada fog ee kaba soo qaad himilada ama himilada fog ee shacweynaha Soomaalida ogaadeenaya shacabka Soomaalida ogaadeenaya waa inay ku xoroomaan gumeysiga madow ee Itoobiya sida awgeed shacabka Soomaalida ogaadeenaya boqol taageer jabhadiisa gumannimo doonka jabhadda gumannimo doonka aan waxa uu leeyahay marka in ay ummadan xoreeyaan inta la xoreynayana inta u shahiiday ee u dhimatay waxay gaadheen dhiigoodii daatay iyo shahiideen natiijadii kaydka ay isticmaaleen waa hoggaanka aragtida gaabani ma garan kara weeyaan marka waa hoggaanka garan kara dhiigga daatay kaydka ka dhashay sida awgeed hoggaanka aragtida gaabani waa makhraatimo doonto eegadan
halgankii shan iyo soddonka sano soo jiray ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya waxay noqotay inuu failed noqdo dabayaaqadii 2019 sida awgeed xorriyadna muusan gaadhin sida awgeed waxaa la dhihi karaa marka hoggaanka aragtida gaaban ayaa sifahaasa marka waa maxay marka hoggaan aragti dheer hoggaanka aragtida dheer wuxuu lid ku yahay hoggaanka aragtida gaaban sida awgeed haddaan qeexnaa waxay tahay marka waxaan kala saaraynaa waxa la yidhaahdo hoggaamintu waa nooc ka mid ah noocyaha inta badan qofka bini'aadanka naturally la waafajiyay ay ka mid tahay kaba soo qaad marka hadda ogaadeen soomaalida ogaadeen jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen cilmi adduunyada lagu dhigayo jaamacada lagu dhigo oo siday ku xoroobi lahayd ma jirto sida awgeed cilmiga ama aqoonta xubinka gobonnimo doonka laga rabaa waxay tahay aragtida dheer leh baa waxay tahay sifuhu leeyahay waxay tahay horta waa markii koowaade uma noola sida dadka xorta ah uma noolaanayo talabaad wuxuu ka dhabaynayaa axdigii iyo ballamihii uu qaado dhan sida awgeed caqiidadii koomneed ahayd naf iyo maal iyo waqti wuu u horhayaa sida awgeed wuxuu noqonayaa marka qofka celceliya 24 saac ee fikradiisa celceliya ee baaritaan ku sameeya ee naftiisa iyo maalkiisa iyo waqtigiisa u horay ayaa wuxuu yeelanayaa markii ay bixin weyn waafajinaya aragtidii xalka aragtidii dheerayd ee xalka waafajin sababtoo ah ma jirto kaba soo qaad marka aragtida dheeri eejadan hadda waxa weeye xilligan xaadirka marxaladda ay ku jirto Soomaalida ogaadenya oo ay dawladda Itoobiya xilli kala guur ay ku jirto gumaysiga Itoobiyadan aqoon buuxda aan u leenahay ayaa waxa weeye dagaal dhex maray jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya gumaysiga madowga Itoobiya gumaysiga madowga Itoobiya markii uu laba ajende dictatorkii madaxa adkaa Zenawi aha markuu curiyay labada ajendii lagu booliska barnaamijka militariga ku jarjaray ee ku joojiyay barnaamij diblomatic ah wada hadal hoolaalana isagoo adeegsanaya shabakadaha caalamiga ah aynu ognahay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya maanta meesha ay taalo ayaa waxa weeye aragti dheer oo ah in dhiigii daatay internationally aqoonsiga caalaminnimo halgankan yeeshay hoggaanka aragtida dheer leh baa jaran kara in dhinaca kale positive-ka ah in wax la hayaa sida awgeed barnaamijkan uu xubsiibashada ah la leeyahay midnimada Soomaaliya waa muqaddas laakiin aragtida dhahaysa marka sababtoo gumaysigu wuxuu leeyahay horeyna waanu sheegnay gumaysigu wuxuu leeyahay wuxuu samaystay political program oo ah Soomaaliya dimuqraadiga la yiraahdo oo Itoobiya oo 27 sano u dambeysay dhalinyaradii wax baratay ee dugsiyada sare ka baxday ee 30 sano ugu dambeysay Itoobiya la falgashay iyagoo Soomaalida ogaadenya oo qof waliba wuxuu islaalinay oo kula dhashay oo kula macna xididkii uu abuuray ayaa urur ah baa barnaamij siyaasi ah baa meesha ka jira madaxweynaha jira oo leh fundraising sababtoo kaasi waxa weeye waa ka xiriirka tooska ah sida awgeed ay yaxtag in reebtii Meles Zenawi sameeyay ya caqabada ugu sareysa sida awgeed xilligan xaadirka ah haddaan ka soo qaadaba barnaamijkan ugu magac daray karo hafariyada kaba soo qaad marka iyada oo la danaynayo shacabweynaha Soomaalida ogaadenya ayaa jabhadda wadaniga xoreynta ahayd wada hadal ba Itoobiya dhex maray oo saddex qodob oo muhiim ah oo ahaa in xabadana la joojiyo in si xorana halgankii sida uu ahaana jabhaddu u halgami karto isla mar ahaantaana taas waxa beeninaya nidaamkii hore EPRDF noocan hadda madamarka ah oo himiladiisu ay tahay midnimada Itoobiya inuu muqaddas yahay kuna duulayo qodobkii 39aad ayaa waxa laga doonayaa inuu hoggaanka aragtida dheer garan karo awoodda laga doonayo
hoggaanka aragtida dheer xilligan xaadirka oo dhagax tuurkii lagu jiro sida awgeed hoggaanka aragtida dheer wuxuu qaadanayaa sifaha ah ka samata bixin kara ay u muuqdaan aragtida sababtoo ah aragtidii gaabnayd shimbirtu haddii ay laba jarab ku duulayso oo jarab uu jabo macnihii halganka wadaniga xoreynta ogaadanya laba jarab buu lahaa marka jarab ka mid a marka meesha uu ka baxay hoggaanka aragtida gaabani failure buu noqday laakiin in internationally uu kayd halgankani leeyahay baa hoggaanka aragtida dheeri uu garan karaa haddaan usoo noqono marka aqoonyahan waa farsamo yaqaan weeye macnihii aqoonta dhakhtarnimada ninkii dhakhtar barta ninkii beeraha barta ninkii ku takhasusa shimbiraha ninkii ku takhasusa midhaha ninkii galleyda ku takhasusa ninkii injineer aha kii spaceman noqda waxaasoo dhammi waa farsamo yaqaan marka aqoonyahanku aqoon sida lagu xoroobo ahaa nin bartay ma jiraan sida awgeed aqoontii uu bartay ummadaan marka xor ahayn xageebay aqoon ka keeni weeyaan laakiin ummadaan xar ahayn waxay la iman kartaa siday ku xoroobi lahayd marka aqoonyahan looma baahna ma aha aragtidaydu laakiin aqoonyahanku waxa weeye aqoonyahanku waa farsamo yaqaan wuxuu bartay falsafada ama aragtidii Isaac Newton ama wuxuu bartay fikirkii Leninism iyo Marxism ama wuxuu bartay aragti macni waa nooc fikir shakhsi ah uu la yimid oo shahaadooyin sare lagu sameeyay oo waxaas uu daba galay natiijooyinkaana uu ka soo saaray laakiin taa waxa kontrideeda ah xornimo doonku ya wuxuu ka samaysan yahay kadib markii uu naftiisa iyo maalkiisa iyo waqtigiisa u huro ayaa wuxuu soo saarayaa natiijo horumara waxa soo hadhay marka xornimo doon iyo siyaasi way kala duwan yihiin xornimo doonku waxa weeyaan isagoo eebbaheen weyna tala saaranaya ayaa heshiiskii uu la galay ummadiisa dhaartu u dhaartay laba arrimood mid u ahayd in ummadan xorowdo ya iyo in uu shahiido ay ahayd oo uu dhinto ayaa weli inta laga gaadhayo marka xorriyadda sidii uu xornimo doon u yahayo waqtigiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa intuu celceliyo ayaa wuxuu qaadayaa marka xornimo doonkii baa marka wuxuu qaadayaa laba waday kala qaadaya tubta saxda iyo tubta khaldan marka tubta saxda iyo tubta khaldan waxaan ku soo ururinaynaa tubta saxda waxay tahay waa ka sida uu gobonnimo doonnimada markuu ku dhaarto inuu ka dhabeeyo naf maal iyo waqtigiisa inuu celceliyo oo shaqadiisu sa ahaato ama uu guusha gaadho ama uu sidaa ku geeriyoodo tubta saxdii waa taa tubta khaldanna waxay tahay inuu u noolaado sida dadka xorta ah inuu u noolaado sida dadka xorta u noolaado waxay tahay kaba soo qaad haddii gumaysigu gudaha ogaadanya laga halgamahay balse uu noqdo nin ka qaxa dhibaatadii gumaysiga qaar way qaxeen qaar marka gudihii bay ku shahiideen qaar xabsiyadii bay galeen qaar way curyaanmeen ya qaar iyagoo saqiir ah bay sidaa ku dhinteen intii isbitaal la waayeen marka qoladii qaxday waxay la hardamayaan duruufihii ay ku jireen sida awgeed haddii uu marka uu dhaho sida dadka xorta ah baan u shaqaysani ama ganacsi baan samaynaya ama jaamacad baan gelayaa oo waxaan qaadanayaa anoon xoroobin xorriyaddii ka hor baa waxaan gelayaa waxaan samaynayaa wax leedahay master degree iyo PhD sababtoo haddee 15 sano uu waxbarashada ku jiray halgankiyaa ugu maqan weeyaan marka farsamo yaqaan ahaan oo dad xor ah siday xor u ahaayeen unbuu shahaadooyin u qaadanayaa jaamacadda loo baahan yahay ummadaan xoroobini waa xornimo doonkana waxa weeye ninba ninka uu uga waayo aragsan yahay waqti geliyo naf iyo maal iyo u hura ayuu jaamacadda ka haystaa sida awgeed tubta khaldan iyo tubta saxdiina markiisa barbardhigo waa sidaa waa maxay xalka waara marka xalka waara waxay tahay jabhadda wadaniga xoreynta Soomaalida ogaadeen nasiib bay leedahay waa wax nasiib badan mar hadday nasiib badan tahay waxay leedahay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen
himiladeeda dhowi wuxuu noqday in la asaasay jabhad wadani xoreyn ogaadeen waxay soo asaasay 35 sano daafaha adduunyada ayay kala joogaan shacabka Soomaaliyeed ogaadeen taageersani halgan wuxuu qabsaday wax la yiraahdo shaqadiisu qabsaday sababtoo ah anu waxaan dhihi karaa hogaankii ugu dambeeyay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee soo hayay laga soo bilaabo 1998 ilaa iyo 2018 shaqadiisu waxay u badneed marka wax la yiraahdo abaabul waxaan dhihi karaa marka hogaankaas wuxuu ahaa hogaan aragti dheer leh muusan ahayn wuxuu ahaa hogaan abaabula oo kicina sababtu waxay tahay haddaad u fiirsatid shacabka Soomaalida ogaadeen oo boqol taageersan hooyooyinka dumarka caruurta dhalinyarada waxjaradka culimada taageersan halgankan 24 saac waxay ku jiraan shirar ma dhamaata waxay soo qaadanayaan calankii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen saddex midab dahabiga ah lahaa ee calaamada xidigta dhexda ku lahaa yay soo qaadanayaan qof waliba soo qaadanaya shirka ay qabsanayaan iyaga ayaa isku tash ku bixinaya hoolal bay kireysanayaan afarta bayna jiha adduunyada shanta qaaradood ee adduunyada ay meel kasta ku nool yihiin bay saacad walbaba ay shirarka qabsanayaan sida awgeed waxay qaadayaan heeso wadani ah waxay qaadayaan abaabul sida awgeed waxaan dhihi karaa hogaankaasi wuxuu ahaa hogaankii abaabulka ayuu ahaa sida awgeed himiladii dhaweed waa in jabhad wadani xoreyn ogaadeen la helo himilada dhexe waxay tahay halgankii muddada dheer dhiigga loo soo daadiyay ee maanta marhaya in la yiraahdo barnaamij siyaasi uu xubsiimanaya qaybo ka mid ahna ay aaminsan yihiin in uusan jirin wax wada hadal ah isla mar ahaantaana barnaamijkii ciidanna liu booliska in ilay lagu jabiyay waxay tahay xilligan xaadirka oo himiladiisa dhexe aynu taagannahay fursadda riyada ah in laga faa'iideystaa waxay tahay gumaysiga Ethiopia lagama dhex samayn karo ilaa ma aad internationally marka waxa loo baahan yahay himilada dhexe waxay noqonaysaa in la caalamiyeeyo himilada fogna waxay tahay marka iyada oo tubtii saxda ahayd halganku ku dhaco marka tubtii saxda uu qaato wuxuu gaarsiinayaa xorriyadii buu gaarsiinayaa iyadoo ay bixin weyna tala la saaranayo waxay mid marka fiiro gaara gumaysiga ayaa waxaan rabaa marka inaan in yar ka taataabto gumaysigu wuxuu yahay gumaysiga madowga Ethiopia wuxuu soo dhibaateeyay oo soo cadaadiyay oo uu soo kadeeday oo gumaysiga ugu xumaay adduunka soo mara aan dhihi karnaa shacweynaha Soomaalida ogaanaya sida awgeed gumaysigani himiladiisa fogi waa inuu ku qabsado qabsi uuba ku qabsadayba wuxuu soo afjirayay halgan kastoo ka sida awgeed barnaamijkan hadda gumaysiga ugu dambeeya waxaan idin tusinayaa inuu yahay mid naxariis laawa ah sida awgeed gumaysigan ha ka sugina xorriyadii ka hor in xuquuq laga helo sababtoo waxay tahay haddii kaba soo qaadba dad caadi ama laba bili aadan ay islaayaan ama laba qowmiyadood islaayaan qowmiyadii laga adkaaday laga guulaysto markii laga guulaysto miyay suurtagal tahay inay naftooda iyo maalkooda iyo waqtigooda intay u huraan tusaalahaas waxaan usoo qaadanay gumaysiga madowga Ethiopia miyaa laga sugi intuu naf iyo waqti iyo maal uu ku huro oo uu ku sameeyo program siyaasi ah oo uu calan ku siiyo oo uu barnaamij dhaqaale kugu siiyo uu gaadiid kugu siiyo oo diyaarada kugu siiyo oo isbitaal kugu siiyo inuu ku dhihi waad xoroobi taa lidkeeda weeyaan sababta gumaysiga madowga Ethiopia waa la abaal mariyay waxa la siiyay peace Nobel Peace Prize baa la siiyay systemka eega ugu dambeeyay abiya mar hadii la siiyayna adigina waad u hambaliyeysay markaad u hambaliyeysayna waad aqoonsatay gumaysigii sida awgeed markaad aqoonsatayna tayadaada xumideeda ayaa la arkay sida awgeed hogaamiyaashii failureka ahaa ee markii olooynahayeen yiri Soomaalida ogaadeen dad ficil ma aha waa arrin yaab leh dad ficil ma sababtoo ah Soomaalida ogaadeen waxa ka soo dhashay hogaamiyaal ruuxi ah oo haddaan xuso eegada ugaas nuur
oo lagu naanaysi jiray nuur cuburiya ma wuxuu cuburinta wuxuu gumaysigu caburinayay ama dadka xumaanta u socoto dhan buu caburinayay isagaasi aragtidiisa fogi wuxuu ahaa haddaan taariikhdiisa waas nuur aan ka sheekeeyay waxay waa hogaamiye ruuxi ahaa oo dhibaatooyinka eego kale ka saaray Soomaalida ogaadeenya oo in la xuso u baahan wuxuu fadhiyay noloshiisii 14 sano ayuu wuxuu ka fiirsanayay sidoo xal u heli lahaa 14 sanana wuu aamusnaa sida awgeed anigu waxaan aaminsanahay in 35 sano jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ay sifahaas oo kale ay ka sii sareyn karto sababta waxaan hogaamiyaha u soo qaataa waxay tahay gumaysiga madow Ethiopia waxaa yaqaanay hogaamiyaashaas hore ee Soomaalida ogaadeenya oo damaacii gumaysiga beenin jiray sida awgeed xilligan casriga ah iyadoo aragtidii hogaamiyaashii inuu ka soo jeednay qaadanayna gumaysiga madow ee maanta marnana waa inaan lagu riyoonin in naf iyo maal iyo waqti intuu ina siiyo aynu xuquuqdeena xorriyadda ka hor ka helaynaa sida awgeed xilligan xaadirka Soomaalida ogaadeen waa inay ka faa'iideysataa oo ay heshaa hoggaan aragti dheer leh ugana faa'iideysaa keedka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya eebahan weyne dhibaatada ma dhamaatada ay gumaysiga madow Ethiopia ku haya ka qaado وأنا أحمد سعاد واسم محمد سو نقد وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.